madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre oo ka soo jeeda beesha ogaadeen haddaba maxaan ka naqaanaa RTV waxa uu ku soo gudbinayaa xog kooban oo la xiriirta ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya horaantii 1970. waxbarashadiisa aasaasiga ee dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay gudaha dalka. jaamacadda heerka koobaadna waxa uu ka soo dhigtay waddanka Yemen, halka shahaadada heerka labaadna uu ka soo qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia. hadda waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland, waxaana uu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo hore uga noqday xoghaye. inkasta oo shaqooyin kala duwan uu ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliya, magaciisa waxa uu si weyn u soo shaacbaxay markii uu noqday gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Jubbaland intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020. intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 waxa uu la taliyay dhinaca maamulka uu soo noqday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda Xasan Maxamed Xuseen Mungab. howlaha kale ee Xamse uu soo qabtay waxaa ka mid ah inuu la taliye sare ka noqday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaaleynta. tan iyo markii uu soo dhawaaday waqtiga gabagabada ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu haysto ku dhawaaqista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayay in ra'iisul wasaaraha cusub uu noqon karo Mr. Xamse. ugu dambeyntiina madaxweyne Xasan Sheekh ayaa doortay. bishii la soo dhaafay ee May 15 ayay ahayd markii doorashooyinka madaxweynaha ee ka dhacday magaalada Muqdisho uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo laga dhoorayay in muddo 30 maalin gudahood uu ku magacaabo ra'iisul wasaare si baarlamaanka loo horgeeyo. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa magacaabay wasiirkiisa koobaad ee xukuumadda maalintii 30aad ee uu xafiiska joogay. ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa hortaala shaqo adag oo ay ugu horeyso inuu soo dhiso xukuumad. waxaa sidoo kale hor yaala in dowladda cusub ay wax ka qabato arrimaha ammaanka, dib u heshiisiinta iyo in ficil uu u bedelo halqabsigii madaxweyne Xasan Sheekh ee ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah. ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda uu soo dhisi doono waxaa hor yaala sidoo kale caqabado adag oo ay tahay in ay ka gudbaan. Abbas Xuseen Muuse, RTV, Muqdisho.